xantu maxay tahay markaasuu ugu jawaabay dikraka akhaaka bimaa yakrah waa walaalka oo aad ku sheegto wuxuu karahsanaayo walaalka oo aad ku dhahda hadal uu nacaayo waa walaalka inaad ku dhahdo wax qaab daran saa darteed waa walaalka oo aad ku sheegto waxaan daayiq markaa u ahayn iyo wax markaa uu nacaayo saxaabadu waxay dhaheen rasuulkii allow waxa aan walaalkay ama walaashay ku sheegayo hadday ku sugan yihiin ka waran rasuulku wuxuu yidhi waad xamatay sala allahu calayhi wasalam haddaysan ku sugnayn ka waran waad ku been abuuratay waa buhtaan waa been abuurad buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam sidaa darteed waxay ku sugan yihiin iyo waxaysan ku sugnayn waan isugu darnay buhtaan iyo ifki iyo been abuurad ayaa loo kordhiyey war shaqada waxaan maanta shaqo ka dhigana aan iska dayna walaalayaal war dadka islaamkaa da'biya caade ay leeyihiin ma aha xanta war wax lagu yaqaana gabar muxajabaa ma aha war wiil ahludiina waxaan lagu yaqaanaa ma aha war dadka ixtiraam iyo qiimay naga mudan yihiin war muslimiinta inay isu duceeyaan ayaa la amray inay ceebaha isku qariyaan baa la amray qof allaala qofkii qof muslima ceebtiisa u qariya ilaahay baa adduuniya aakhira u qariya subxaana wa tacaala war qof allaala qofkii qof mu'min ah kurba ka fayda ilaahay baa ta qiyaama ka fayda subxaana wa tacaala war qof walbaaba qofkii walaalkii danihiisa ka shaqeeya ilaahay baa dantiisa iyo xaajadiisa uga shaqeeya subxaana wa tacaala aadaabtana la baraya fiiriya wanaagga ilaahayna amraya fiiriya subxaana wa tacaala in allaala intaan walaalaheen xaajaadkooda iyo danahooda qaban lahayn waa dhibnay in allaala intaan imaani lahayn oo khayr iyo wanaag aan ku sheegi lahayn waan xamanaynaa in allaala intaan khayrkii wanaagga isu dardaarmi lahayn shartii xumaantaan isu dardaarmaynaa rasuulku haddaysan ku sugnayn waxaad ku sheegaysa waad ku been abuuratay buu yidhi waxaad la timid iftaro waxaad la timid buhtaan sidaa darteed dadka xaaladoodu ay sidaa tahay cadaab buu ilaahay u ballanqaaday waaladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaat bigayri ma iktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa ifman mubiinan been abuurad bay xambaarteen buu yidhi ilaahay waxay ambaarteen oo ay qaateen been abuurad iyo dembi cadiim ah war dadkii muslimiinta how dadaala war khayrka iyo wanaagga badiya ilaahayna in badan ka caabuda oo khayrkii wanaagga ku dadaala rasuulka abaadar ayuu la hadlay markaasuu yaa abaadar iyaaka waalghiiba xantaan kaaga digaya waxyaabo fara badan baa la amray waxaa ka mid ahaa kiibada inuu iska ilaaliyo waayo way ka adag tahay zinada way ka dembi adag tahay sababtu waxay tahay buu yidhi nebiga axadka marka uu zinaysto uu rabbi u tooba keeno ilaahay toobada wuu ka aqbali oo cid kaloo dembi dhaaf uu weydiisanayaa ma laha amaa xantu waxay u baahan tahay marka ilaahay cafis la weydiista ka gadaal qofkii la xantay in loo tago waxaad kala kulmi doontid ma ogid war dadka mu'miniinta icraafkooda iyo sharaftooda daaya war luxuumtaan dadkee la cunaya iska dhaafno war waxaan maantaan caadada ka dhiganay aan iska dayno war waxaan maanta carabkeenna ku fududaaday aan iska ilaalino wallaahi in badan waxay dadka cadaabka ku galaan waa carabka waxa cadaabka lagu mutaysta waa carabka subax walba xibnaha ayagoo khushuucsan yay hoos imaanayaan carabka markaasay leeyihiin ittaqillaah war carabow ilaahay nooga baq adigaan ku nahay haddaad toosnaato waa toosnaanaynaa haddaad qalloocata waa qalloocnaanaynaa carabka dhibaato badan oo ba'an buu dadka ku hayaa war waa idinkala digayaa adi iyo xan war xan meel lagu haayo ha u dhowaanin